السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي soo dhawaada meel kastoo adduunka aad joogtaan. geeri aad iyo aad u falxun ah ka dhacday magaaladayda aan jeclaa Nairobi oo lagu dhibaateeyay hooyo iyo labadeeda gabdhood. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto, ilaahay reerkaas xaqooda ha soo ifiyo. inkastoo newska aan ku arkaayo saakay in la helo dadkii gacan ku dhiiglayaasha ahaa iyo naagihii iyo wixii shirqoo leh wixii oo dhan dee maba sii fiirinin. anigee shaqaa usoo ordaayeen waxay u egtahay inay annaga nagu soo biyo shubatay. walciyaadu billaah, waa wax aad iyo aad looga naxo, waa wax aad u foolxun. dadka qaara waxay dhahayeen islaan kaloo odaygeeda u qabayo Ameerika joogtaa shirqooshay miyaan aqaan. bismillaah, ilaahay rabbi raxmaano waxna shirqooli waxna dhibaateeyo intii muslimiin anagaba naga hay. midda kale sidaas foosha xun ee cadawtinimada xad dhaafka ay ku jirto wax noo qabo ilaahu waa kaa magan galna rabbi raxmaano. allah haddii ogaan lahaayeen caloosh waxa igadii videoga gabdhaha yaryarka markay hoos joogeen ee faraxsanaayeen ee qosqoslaayeen ee yacni haddii ogaan lahaayeen xanuunka ay wajahooyaan tilaabo kastay qaadayeen. aniga dadka qalbigeyga haddii lagu rakibi lahaa hal iska qeylqeeliyaane, laakiin dhiig iyo dhib way ka fogaan lahaayeen. ummadda dhan ayaa qalbigeyga ku rakibaa isdhihi lahaa. yaa walaahi ma umaleynaa ilaahan ka magan gala si kastaa u xumaada inaan naf jari karo, inaan qof xanuuji karo xataa, aan cijiyeysan karo xataa. walciyaadu billaah, hadda kahor anoo yaraa walaalkay isdagaalna markaasaa wejigi ka xagtay, markaasaa dhaawiciisa fiirin waay. markastoo arkabo waxaan is dhahaa maxaa cijiyahaaga baastiriinta ah caloosha inta iburto. yaa ilaahay rabbi raxmaano wax sidaa noo nacab oo sidaa cadow noogu ah adduunyada dusheeda hanoo keenin. yaa allah yaa arxamar raaximiin. ilaahu reerkaasna u naxariiso, ilaahu hooyadaas iyo gabdhaheed u naxariiso. calool xumo badana markii la aasamaa layiri misma la aasamo ogi haddana waxaa la helaa layiri gacmihii gabdhaha mid ka mid ah. laa ilaaha illa allah, xasbi allah wa nicma alwakiil. ilaahay rabbi raxmaan oo naxariistaada sii, ilaahay xaqooda soo ifi. hadday run tahay islaanta aabahooda oo la sheegay inay Ameerika joogto ee dhibkaas ka dambeysay, ani waxaan qabaaba way fiican tahay inay Ameerika joogto, because Ameerika dadka si fiicanaa loo ciqaabaa dambiilayaasha. waxaa laga yaabaa naagtaas inay dil mudataba oo la sumeeyay gebigeeda 20 sano markay xirnaatay kadib in la sumeeyo. waaba hadday runtaa ani ma hubi hadalkan, yacni dad kale ka dhegdhegay wax huba maaha, laakiin hadday tahay ani waxaan qabaa way fiican tahaaba ayadana waa la sumeyn doonaa insha allah si dadkaas u dishay. walow aniga dadka markay dhib iyo xanuun qofka loo geysto u bararto oo la safan ahay, haddana markii qofkii xukunku dhaco haddana ka naxa asaga laftirkiisa dilaagiya ka naxaan dhaa laa ilaaha illa allah la dilaa. wallaahi markasto tilaabada gabdhaha qaadayeen iga hor muuqato. xanuunku ay mareen ilaa ugu dambi dhaaf rabbiyo. dhalinyaray ahaayeen, rajo adduunyo qurux badan hortooda taale. hooyada xataa hooyo yara ahayd. qof baa wuxuu soo dhigay gruubka ciyaalkayga dugsigiisa meydka hooyada oo qoorti go-an tahay. indhahayga maxay u qabteen aan dhah qofka soo dhigan ma u duceynin. wallaahi waxaasoo kale lama faafiyo. please sawirada qaracanka ayaa la faafinin. warbixintaa ku filan in dadku ay ogaadaan wixii dhacay, laakiin sawirada cabsida la joojiyay please aa faafinaysiin. magaaladayda ani aadaa u jeclahay Nairobi. ilaahu Nairobi dhibkaha inkastoo nalku lugooyadee dalkii nalka qarxinaa nalka gubaa. Nairobi aan dhiseynaa lugooyo caadiya ku jirnaa. wallaahi haddaa soomaalina waa boojeysanahay. dhul islaameed aan dhiseynaa, dhulkeena rajo ka qabin si dhulkeena uga rajo beelna uga quusanana maalin kasta meeshii laisdhaho 2 bir laguna noqdo laisdhaho waa nabad waa nalka qarxino. kabacdi maxaa dhacaya waa qaxeenaa dee reeqaxaaya. anaga maxaa ku fiicannahay qaxooga ku fiicannahay ee geediga meesha haddii wax yarna u qabsato waa qalqaleena. dhulkeena moogta haddii wax kugula dhacaano the last waa yacni meel ka dambe soo ciirsanaysa male waa u qabtaa. laakiin wixii kugula dhaco dhul shisheeye xoogaa ma gocanay waxaa isleedahay jah haddaada imaan laheenaa kuguma dhacdeen. anyway asxaabe muuqaalkayga intaanu ku egyahay aan ugu tacsiinaya reerkaas. waalidkii wada ilaahay samir iyo iimaan ha siiyo. warku taalaa gaartay ciddaas intii ka harta ilaahay rabbi raxmaanka qalubtooda dejiyo.
aadaan ugu faraxsanahay inay soomaalida iskugu duubmaan usoo baxeen inkastee dee ayba dhici karto ceeb aad u weyn oo wixii dhan annagii soomaalidana ay kusoo biyo shuban karta laazim laakiin kenyaan way ku lug leeyihiin